الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا وعلي وجود دي بسبورتيga ninkii saaxiibkay maxamed khalifa oo wakiilka ah oo safar nooga maqan haddii aan warbixin yar oo ka bixiyo isboortiga maxamed khalifa meesha iga tagay horta jaaliyada iyo ururka waxay qabteen sanadkan 2023 garoomadaas oo kala ah Basco Fori Loste iyo Hirvan Salo waxay u qabteen dhalinyaro oo kaam ku jiro oo da'yar ay u qabteen oo Soomaali ah nimankii kaamka jooga xataa horjoogayaasha ka ah wadanka finish ku dhashay xataa aad loogu mahadceliyay oo loogu dhiirigeliyay gudoomiyaha iyo ururkaba Lostana laba qaybood waaye qayb da'yar yar oo aad u yar oo joogo ilaa waxa lagu hayaa ku dhawaad 25 ilaa 30 dhalinyaro ah oo habeenkii magaalada aadi lahayd waxay leeyihiin group rooma oo WhatsApp ah waxyaabaha looga faa'iideysto waxaa kamid ah cuniga hadduu casharka ka shaqeyna xataa hooyadii waxay leedahay cunigii casharka ma soo shaqeyn soo sheegaa la yiri cayaarta lama dheersiinaya marka cunigu wuxuu ku qasban yahay soo casharada ka soo shaqeeyo inuu cayaarta yimaado oo ka dheelo marka iyada naftigeeda faa'iido iyo dhiirigelin waa ku dhiirigelina gudoomiyaha iyo qaybta isboortiga walaalkay maxaa khalifa intuu ka imaanay in la sii wado la sii xoojiyo garoomada hadda way xiran yihiin 2 isbuuc ku dhawaad wayna furmayaan insha Allah waana laga sii badinaa waxa kale oo imaan rabto in dhalinyaradaas meelo badan loo sii qabto oo dabaal ah oo lagu sii haayo si xataa waxbarashadooda xataa ay u sii weynaato meelo badan oo waalidiinta aad ugu soo mahadceliyeen gudoomiyaha iyo ururkanba way jireen marka ururkan waxaa dareemay waxyaabo badan oo aan deegaankan laga qabanin inay ka qabanayaan waxaan rajeynaa insha Allah 2024 markay noo sii furmaan inay meesha ka soo socdaan insha Allah bidnillahi alkarim dadaalkaasna laga sii wado waxa soo dhan ururku way noo soo wadaan marka laakiin waa inaan ku dhiirigelinaa waxay qabtaan haddaan lagu dhiirigelinin meel cidla ugu dhiiqanaysaa gaar ahaan wiilasha inta laga qabtay arin aad iyo aad u muhiim waaye aad u muhiim ah dadka hadda ugu daran oo anaga badanaa cabsideena wiilasha waaye oo yar yarka oo dhalinyarada gabdhaheena xataa wax ka bar hadda lagama cabsado inta badan markii Europe la fiiriyo gabdhaha wax barta xataa waxbarashada markii loo fiiriyo dadaalka Europe oo dhan gabdhaha la hayo marka gabdhaha cabsi badan kuma jirto ilaahay ayagana noo hanuuniyo hana noo wada hagaajiyo laakiin wiilasha yararka inta loo qabtaa aad ay muhiim u tahay way rabaan kulligooda isku sheegaa way iska daba ordayaan aad iyo aad muhiim u tahay marka intaas aad loo xoojiyo dhalinyarada in aad loo mashquuliyo qofka dil la daaliyo asaas seexanaya laakiin hadduu wuxuu qabtay waayo duurku soo istaagaa السلام عليكم كلجين وسلامتين دمانتين horta hawlo badan qabateen oo aad u wanaagsan xaqiiqdii oo jaaliyadu qabatay laakiin sidaan ma aragtay ka muuqato programmada badankooda way ku saabsan yihiin niman iyo caruur iyo dhalinyaro aniga aad iyo aad ugu farxada dhalinyarada Hirvan hawsha loo qabtay oo ma aragtay inay caawimaad weyn siisay oo ka heleen ay waqti u heleen oo agtooda ay banooni ku ciyaaraan waa wax wanaagsan laakiin sidaad sheegtay aniga waxaan rabi lahaa dumarka in meel loo soo qabto kaliya ma ahane sidee dumarka guriga looga soo saari karaa oo waxaas activity-gaas ay uga qayb qaadan karaan laftirkeeda waxay u baahan tahay qorshe iyo howl ay u baahan tahay marka wax sahlanna ma ahan see horta loo soo baxay gurigiisa looga soo saarayaa way u imaan karaan oo maaragtay maxaa lagu soo jeedan karaa qorshe see ahaan u sameyn karnaa